laga soo bilaabo 18 May 1991 Soomaaliland waxay soo martay maraaxil kala duwan waxaana soo maray tiro afar madaxweyne kuwaas oo mid waliba qaybtiisa ka soo qaatay dhismaha dalka iyo dawladnimada waxaana madaxweynayaashaasi ay kala hayeen Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo 1991 ilaa 93 xilkaasi hayay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal 1993 ilaa 2002 madaxweyne Daahir Yaala Kaahin 2002 ilaa 2010 madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2010 ilaa 2017 waxaana dhamaantoodba ay ka sinaayeen inay kor u qaadaan ammaanka iyo hanaanka dawladnimo isla markaasina ay keenaan in doorashooyinkii dalka ka dhacay ku dhamaadaan si nabadgelyo kuna bilaabmaan kasoo madaxweynayaasha soo maray Soomaaliland waxa haatan dhacday doorashadii madaxweynaha taas oo muddo xileedka madaxweynuhu uu yahay 2017 ilaa 2022 waxaana shantaasi sano hor yaala madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi-Qeybta inuu wax ka qabto dhacdooyin badan kuwaas oo Cable TV soo bandhigay qaybo kamid ah kuwaasi waxaana qodob koowaad uu yahay sicir bararka geedi socodka nolosha ayaa sababaya inay abuurmaan dabaqado nololeed oo aad u kala fog kuwaas oo bulshada ka dhiga qayb dharagtay iyo qayb kale oo la tacaalaysa nolosha iyo duruufaha adag ay ku gadaamaan kuwaas oo waqtiyada qaarkood aan helin waxyaabaha ay cuni lahaayeen waxaana kuwaas oo mas'uuliyadooda dusha ka saaran tahay xukuumadda waqtigaas talada dalka haysa taas oo la tacaalaysa inay jaangoyso nolosha isla markaasina ka ilaaliso inaanay abuurmin dabaqado nololeed oo kala fog waxaana taasi ay keeni kartaa haddii ay awoodda saarto inay jabiso maciishada isla markaasina ka ilaaliso inuu dalku ka dhaco sicir barar baahsan oo saameyn xoogan ku yeesha nolosha dadkaasi dhibaataysan waxaana sicir bararku haatan maraya halkii ugu sarreysay taas oo shacbiga qaarkood ay awoodi kari waayeen inay iibsadaan maciishada ay ku noolaan lahaayeen taas oo ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee hor yaalla madaxweynaha la doortay waxaana ay ka mid tahay waxyaabaha ay u dhigtaagayaan shacabka Soomaaliland tallaabooyinka uu ka qaado madaxweynaha la doortay sida uu la macaamili karo sarif bararka ka jira dalka oo haatan halka doolar ee lacagta lagu sarifo 10,000 oo shilinka Soomaaliland tanana waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay awoodi kari weyday xukuumadda xilka ku wareejinaysa inay jabiso sicir bararka iyo sarif bararka ka jira dalka kadib isku dayo badan oo ay sameysay oo aan u suurtagelin qiimaha shilinka Soomaaliland dal waliba waxa uu ku faana macno badan oo sameeya lahaanshiyaha lacagtiisa isla markaasina uu ka horeeyay lacagaha qalaad ee dalka soo gala balse waxa muuqata waqtigan shilinka Soomaaliland uu macno badan u lahayn qarankani iyadoo oo laga doorbido lacagta elektrooniga ee telefoonada lagu qaatay iyo lacagaha dollarka waxaana taas sababtay inuu lumo qiimaha shilinka Soomaaliland taasoo bedelkeeda ay jiraan lacago ay lahayd Soomaaliland oo gabi ahaanba meesha ka baxay isticmaalkeedu kuwaas oo kala ahaa 5 shilin 50 shilin iyo 100 shilin ee Soomaaliland isla markaasina ay meheradaha qaarkood ay gaadhaan in aanay waxba laga iibin dadka sita waxaana madaxweynaha cusub ee la doortay looga fadhiyaa inuu sare u qaado qiimaha shilinka Soomaaliland isla markaasina uu ka horeeyay lacagaha qalaad iyo kuwa telefoonada lagu qaato ee saadka iyo dahabka iyo waliba dollarka kuwaas oo ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu yareyn karo sicir bararka iyo sarif bararka xarkaha goostay maadaama haatan halka doolar lagu sarifayo 10,000 oo shilinka Soomaaliland kala qaybsanaanta bulshada iyo qabyaaladda Soomaaliland waa dal ku koray nabadgelyo iyo hanaan dawladnimo isla markaasina ay ka dhacaan doorashooyin si xor ah shacabku ugu doortaan madaxweynaha hogaaminaya inkastoo aan la gaadhin madaxweynaha lagu doorto waxqabadkiisa oo ay ka awood badan tahay qabyaaladdu haddana waa waxyaabaha ay dunidu ka majeeratay ee loogu soo istaago inay Soomaaliland ka dhacdo doorasho uu shacabku gacantiisa wax ku rido waxna ku dooran karo dib u dhacyo badan oo la xiriir doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland waxa uu gabagabadii heshiisku noqday inay dhacdo 13 November ee sanadkan 2017 ka hor maalintaasi ay dhacday doorashada madaxtooyada waxa ka horeeyay 22 cisho oo loogu talagalay olaha doorashooyinka asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland kuwaas oo dibadda soo dhigay muuqaalo badan oo aanay jeclaysan inta dibadda ka joogtay olaha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland kuwaas oo hoos u dhigay meeqaamkii ay joogtay Soomaaliland walow ay waxoogaa dib u soo celisay hanaankii fiicnaa ee u dhacday codbixintii doorashooyinka madaxtooyada balse waxa dibadda ay soo dhigtay shakhsiyaad maamuus iyo magac ku lahaa Soomaaliland oo u xubsiibtay hab qabyaaladeed doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxyaabaha ugu waaweyn ee dibadda soo dhigtay waxa ay ahayd in dibadda ay u soo baxday kala fogaansho shacab oo la xiriira darafyada ay ka soo kala jeedaan musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka madaxtooyada marka laga reebo musharaxa xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo isagu ku ololeynaya kitaabka Quraanka iyo in laga fogaado qabyaaladda waxaana asxaabta kale ay taageerayaashoodu si xoog uga dhex muuqdeen galbeedka iyo bariga magaalada Hargeysa oo haatan ka soo baxay 22 cisho ay ku soo dhameysteen buuq iyo in gabi ahaanba ay wadooyinka xirmaan oo ololihii doorashada
kasoo dhalinyarada u hanweyn xisbiyada kasoo kala jeeday bariga galbeedka magaalada Hargeysa waxa iyaguna qeyb weyn ku lahaa qaar kamid ah salaadiinta Soomaaliland oo iyaguna dibadda soo dhigay hanaanka ay ku raaceen asxaabta taasoo badankeedu la xidhiidhay reero iyo qabyaalad ay shacabku moodayeen in laga soo gudbay waqtiyadii ka horeeyay sanadkii 2000 oo haatan laga joogo 17 sano balse waxa haatan ay dib u soo noqotay iyadoo oo loo soo xidhay shaarka doorashooyinka kuwaas oo ku hoos jirtay hadallo lagu maaweeliyo bulshada oo la xidhiidhay hebel dhaama taasoo ay hoosta kaga dugnayd inuu suldaan waliba dib ugu noqday abtirsiimo awowyaal ab iyo isir baan wadaagnaa waana waxyaabaha dhibaateeya amaanka iyo wada noolaanshaha bulshada waxaana madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi-Qeybta hor yaala inuu ku dadaalo sidii uu u walaaleyn lahaa bulshada isla markaasina uu go'aano madaxweyne uga soo saari lahaa madax dhaqameedka culayska xoogan ku haya siyaasadda ee aan haatan la kala saari karin siyaasiga iyo suldaanka waxaana loo baahan yahay in madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi-Qeybta uu kala saaro siyaasiga madax dhaqameedka qodobada kale aan ku soo qaadanayno waxa kamid ah khilaafyada u dhaxeeya qaar kamid ah beelaha Soomaaliland deegaanada bariga galbeedka Soomaaliland waxa goobaha qaarkood ka alowsan xurgufo u dhaxeeya shacabka wada dega deegaanadaasi kuwaas oo qaarkood soo jiitamayeen muddo isla markaasina u baahan madaxweynaha cusub uu ka shaqeeyo walaaleynta iyo isdhexgalka bulshada wada degta si uu u baajiyo inuu sii socdo dhiig daata iyo colaad gaamurta oo dhex jiifta dadkaasi walaalaha waxaana taasi markhaati ka madaxweynaha la doortay ee Muuse Biixi-Qeybta safarro uu ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Sool iyo Ceerigaabo oo waqtigaasi uu arkayay iyadoo ciidamada qaranka Soomaaliland ku kala dhex jiraan beelahaasi walaalaha ee dirirtu dhaxayso waxaana madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland hor yaala sidii uu islaax iyo walaalnimo dib ugu soo celin lahaa dadka wada deegaanadaasi mudane madaxweyne waxa kale oo jirta murano deegaan oo u dhaxeeya dadka wada dega galbeedka iyo waqooyiga Soomaaliland kaasi oo ah muranka 6 degmo oo sanadihii ugu dambeeyay soo jiitamayay waxaana haatan madaxweyne ku hortaala ka garnaqa 6daasi degmo warbixinahan ugu magac darnay maxaa hor yaala madaxweynaha la doortay